shirkun ay hagaban qaabidii wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa dowladda federaalka Soomaaliya may daafuray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagarin may ku qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo dowladda federaalka Soomaaliya madaxda wasaaradda xanaanada xoolo dowlad goboleedyada dalka hay'adda raashinka iyo beero qaramada midoobay qaabilsan FAO iyo mas'uuliyiin ku socotay AU iyo khubaro kale madaxweyne Cabdicasiis Laftagarin oo shirka furiya sheegay intii qorshadan uu muhiim ee nidaamka dhaqaale ee Soomaaliya usugan xusay intii markii la ku kooyo dhoofinta xoolo iyo sidaas oo kale fursadan ee dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka ka sugan Soomaaliya nolosheedu wuxuu ku jiraa xoolaha waxaan rabnaa in la soo celiyo oo laga faa'iideysto nolosha xoolaha laga ganacsado la dhaqdo la maasho la qasho la tayeeyo dadka loo soo jeediyo xoolaha dhibaatadan dhacday oo magaalada la soo wada galay oo abaaraha iyo abaarda ay saameeyeen in dadka dibadejin loo suubiyo ninkii xoolo dhaqato ah oo xoolihiisa abaar ay ku dhacday oo yaqaano suu xoolaha u dhaqdo lagala shaqeeyo inuu helo sida dhaqankii hore Soomaalida ahaa waxa la yidhaahaa aduug yaa jiri jiray aduug qofkan markuu cayrtoodo oo masiibo ay dhacdo oo abaar ay dhacdo oo xoolihii ay dhaafaan dadka ehelka u ah ama deriska u ah iyaa waxay siin jireen 2 neef 3 neef oo aduuga marka kiiba u tarmi jiray waxaa la jiray bilow waxyaalaha qorshaha ku darsanaysaan waxaa ka mid ah dad yaqaano xoolaha say u dhaqdaan oo xoolo dhaqato ah yaa waxaa ku dhacday dhibaato waxaa saameeyey abaar xoolihii baa ka baaba'ay haddii ay helaan in aduugkaaga ay sheegayoo kale ay helaan waxay diyaar u yihiin inay aduutaan oo xoolihii dhaqashadoodii ay ka shaqeeyaan dhibaatada ugu badan oo Soomaalida ay kulligeed isula walaal u tahay oo meel kasta joogto ay isula dhalato isaga warayso isu dhaqan u tahay waa dhaqanka xoolaha waay beeralayda ma guurto xoolo dhaqatada laakiin waa guurtaa ninka xoolalayda meeshuu hor ka dayo waxaa uu yaala male waa aadaya waa guuraya meeshii forecast ayuu aadaya cid kastoo degan isaga walaalo isla meeshaas uu tagay markay ugu yartahay sanad uu joogaya dal iyo dad iyo ku soo baranaya waxba uga soo haraya waxna waa ka soo raacayaan hadduu soo noqdo waxaana suurtagal ah qofku inuusan soo noqon inuu iska joogo marka waxay muhiim u tahay hataa isdhexgalka bulshada walaalnimada isla noolaashada iyo iskaalmaynta sidii waagi hore ay ahaan jirtay hebel xoolihii baa ka dhammaaday hebel baa aaday waa la isku tegi jiray waa la soo sooriyeyn jiray xoolaa la soo siin jiray marka nolosha lafdhabarteeda ee xoolaha marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin shaqo aad iyo aad u fiican oo wadaan waxaan rabnaa inaan inta uga mahad celiyo FAO iyo EU iyo hay-adaha kaalmaynayo dib u soo noolaanshaha xoolihii Soomaaliya iyo xoolo dhaqatadii Soomaaliya aad ay u mahadsan yihiin wasiirada tiimka technical iyo wasaaradda federaalkana sidaas oo kale aad ay u mahadsan tahay abaabulkan iyo shaqadan fiican oo ay qabteen runtii waxaan rabnaa wax fiican oo macno leh oo taariikh leh oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxaan waa ku farxayaan maanta shirkan maanta ka furan inuu ka soo baxo shirkiina aad iyo aad maadaama dad xooggaal u ah aqoon-yahanana aad tihiin sidii xoolo dhaqatada ay u heli lahaayeen daaqii biyihii caafimaadkii iyo wada noolaashihii intaba wasiirka xanaanada xoolo dhirtiyo daaqa dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen Maxamed Xuseen iyo wasiirka xanaanada xoolo dhirtiyo daaqa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Muqtaar Maxamed Guuleed yaa dhinaca xusay intii shirkun oo lamada maalin ku socdo doona magaalada Baydhabo anti wasaaradda xanaanada xoolo dhirtiyo daaqa iyo ku go'aanta anti howlgelida sidii lan horumariyo lahay malaayiinta xoolo dhaqatada ee ganacsatada xoolo iyo dhammaan dadka nololiyo iyo kihirinta wala saarowka xoolo bacdshaan sharaf weyn ay tahay in ayuu madaxweynaha uu joogo in aynu ku soo dhaweyno xaruntii ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee degmada Baydhabo sidoo kale waxaa sharaf inoo ah haddanahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaheena in wasiiradii dowlad goboleedyada dhammaan dalka oo dhan oo hal wasiir uusan ka maqneen maanta ay ku sugan yihiin dhammaantood xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taasna sharaf ay inoo tahay
sidoo kale waxaa sharaf inoo ah in technical teamka ka socda wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo wasaaradda federaalka oo laga yaabo in markii ugu horeysay ay tahay inay baydhabo yimaadaan in maanta ay baydhabo shir ugu wargalayaan muddo 2 maalmood ah ayadana sharaf ay inoo tahay hadalka badnaantiisa waxaa qaadan doona insha allah wixii dowlad goboleed ku saabsan madaxweynaha oo lagu weyn ayaa jooga in hadalka sii bari maahan maadaama wasiirkii martida loo ahaa aan ahay waxaan u istaageliyay inaan idinku soo dhaweeyo. waxaa maanta fursadaan u haysanaa way ka duwan tahay mashruucyadii hore waxay ahaan jirtay waxa naloo keeni jiray mashruuc samaysan oo la og yahay wixii la samaynayo wixii kale maanta waxaan u fadhinaa in khubaradii Soomaaliyeed oo ka kala timid deegaanada Soomaaliya oo dhan ay halkan yimaadaan Baydhabo oo idinka aad ka talisaan priority-gii iyo action-kii iyo sidii waxba meel walba oo muhiim ah daaqii waraabkii daaweynta xoolaha caafimaadkooda maadaama aan ognahay waddanka Soomaaliya inay xoolaha laf dhabartiisa yihiin waa la socotaan 70% shacbiga Soomaaliyeed oo reer guuraaga ah waxaa dhaqaalahoodu ku xiran yahay waa xoolaha waxaa kaloo la socotaan in dhoofka xoolaha Soomaaliya uu yahay dhaqaale badan uu ka soo geliyo waddankan. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo bogaadii dhammaan golaha wasiirada xanaanada xoolo dowlad goboleedyada dalka iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya isku duubnida iyo ka shaqeeya hayaan shacabka Soomaaliyeed ma inuu soo dhiirigeliyay intii sii dardargeliyaan howlo shaqeeya horyaala. baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan nala joogtaan aad maxay ahayd waddankeena iyo dadkeena aragtaan marka sida uu horay wasiirka u sheegay soo dhawaada waa sharaf weyn noo tahay runtii baryahan dambooda shirarka sida hadda loogu dhanyahay looguma wada dhammaan jirin dowlad goboleedyada laakiin waxaa ii muuqato wasiirka federaalka inuu xiriirkiisa uu aada u fiican yahay oo uu wasiirada dowlad goboleedyada dhan uu saaxiibo la yahayo shirkiisa la yimid shirarka kale markii aan daha furayno waxaa maqan wasiirkii koonfur galbeed waxaa maqan wasiirkii galmudug waxaa maqan kii Puntland kuwa jooga kuwana waa maqnaan jira laakiin kan waa loo wada dhanyahay marka sheekadii Soomaalida oo ahayd looma dhambo waa ka gudubnay waa loo dhanyahay kan waxayna caddaynaysaa wada shaqaynta fiican ee wasaaradda ka socota soo sheegay wasiirka dadka Soomaaliyeed mashruucan maanta wuxuu u yahay muhiim mashaariicda Soomaalida anfacayso muhiim uu ka mid yahay waxaa lagu ogaanaysaa Soomaaliya waa xoolo dhaqato wixii ka soo hara waa beeraley laakiin 70% ma ahan 60% xoolo dhaqato waay 30% beeraley waay 10% kalluumaysato waay hadda la tababaraya dadka kalluumaysiga ay baranayaan marka khayraadka Soomaaliya saddexdaba waa yaala wuxuu rabaa in laga shaqaysiiyo oo dadkii dib loogu celiyo inay ka shaqaystaan oo noloshii rasmiga ahayd oo lafdhabarkay la soo celiyo oo maxay tahay waa xoolihii haddii Soomaaliya nolosheeda dhan ay ku tiirsanayd xoolaha oo xoolihii laga soo tago nolosha Soomaaliya ma jiraysay la mid marka nolosha lafdhabarteeda ee xoolaha marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin shaqo aad iyo aad u fiican oo wadaan waxaan rabnaa inaan inta uga mahad celiyo FAO iyo EU iyo hay-adaha kaalmaynayo dib u soo noolaanshaha xoolihii Soomaaliya iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya aad ay u mahadsan yihiin wasiirada tiimka technical iyo wasaaradda federaalkana sidaas oo kale aad ay u mahadsan tahay abaabulkan iyo shaqadan fiican oo ay qabteen runtii waxaan rabnaa wax fiican oo macno leh oo taariikh leh oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxaan waa ku farxayaan maanta shirkan maanta ka furan inuu ka soo baxo shirkiina aad iyo aad maadaama dad xogwaal u ah aqoon-yahanana aad tihiin sidii xoolo dhaqatada ay u heli lahaayeen daaqii biyihii caafimaadkii iyo wada noolaashihii intaba inaad ka soo saari doontaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga mahad celinayaa imaashaha aad shirka ka soo wada qayb gasheen soo dhawaada deegaankiini
koonfur galbeed magaalada baydhabo oo caasimada kumeel gaarka ah shirkina waa noo furan yahay. shirkun oo la kawada intii muddo lama maalin ee ku socda magaalada baydhabo ee xarun goboleedka Bay xiritaanka iyo la ku saaradoon war murtiyeed kaas oo isku waafaqi doonaan dhammaan golaha wasiirada ee xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa dowlad goboleedyada dalka iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Faysal Maxamed Isaaq, warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed, Baydhabo.